sagaalka Ramadaan sanadii 2 Hijriga waxaa la farad yeelay Zakaatul Fitri iyo salaada Ciida. Zakada guud ahaan waxaa loo kala qaadaa 2 qaybood: zakada jirka laga bixiyo oo ah Zakaatul Fitriga iyo midda xoolaha laga bixiyo oo loo yaqaan Zakaatul Amwaal. Zakaatul Fitri waxay waajib ku tahay ruux walba oo haysta quutul yoomkiisa wax ka dheeraad ah. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qadarka la bixinayo oo ah saac oo u dhigma 4 koombo ama 3 kilogram oo cunto ah. Cuntadaas oo shacabka meeshaas degan ay badan quutaan. Hadduu bariis ahaado, qamadi, timir, zabiib iyo wixii la mid ah. Waxaa jirta su'aal dadka badanaa isweydiiyaan: Zakaatul Fitri lacag ahaan ma loo bixin karaa? Su'aashaas jawaabteeda waxaa ku soo aroortay 2 qowl. Qowlka koowaad, culimada kala haysta madaahibta Shaaficiga, Xanaabilada iyo Maalikiyada waxay sheegeen inaysan banaaneyn in Zakaatul Fitriga lagu bixiyo kaash ahaan, ayagoo u daliishanaya inaysan jirin wax nusuus ah oo ku soo aroortay arrinkaas. Qowlka labaad, madhabka Xanafiyada wuu banaayaa in lagu bixiyo kaash ahaan haddii cunnada la siinayo ay haystaan oo mutawafir ay tahay. Haddaysan haysanna waxaa fadli badan u leeyahay in cunto ahaan loo bixiyo. Zakadan waxay waajibaysaa maalinka ugu dambeeya Ramadaan markay qoraxda dhacdo, waxaana la bixin karaa ilaa salaada Ciida ka hor. Inta u dhaxaysa marka wixii lagu bixiyo waa Zakaatul Fitri, wixii salaada Ciida ka dambeeyana waa sadaqo caadi ah. Waxaa kaloo bannaan in la bixiyo maalinka Ciida maalin ka hor ama 2 maalin. Xikmadda loo jideeyay Zakaatul Fitriga waa xikmad aad ka dareemayso naxariis iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa oo ku manaystay mu'miniinta. Waxaa loo jideeyay inay daahiriso qofkii soomanaa ay ka daahiriso wixii afxumo ahaa, qaladaad ama gaf ka dhacay. Sidoo kale dadka masaakiinta inay u ahaato quud iyo farxad ay ku ciidaan.